waxay leedahay su-aasha sheekh maxamed dahabka in la carbuunto ribo miyaa ku jirta sheekh? bismi illahi raxmaan raxiim. dahabka marka la kala iibsanayo laba shardi baa laga maarmaana in la ilaaliyo. shardiga koowaad waxa weeyaan dahabka dahab haddii lagu iibinayo waa inay isla eg yihiin, waana in meesha lagu kala qaato markaa lagu kala baxo wey. haddii dahabku iyo lacag laysa siinayo, dahab iyo lacag laysdhaafsanayo, shardiga keliya ee laasimka waxa weeye markii la heshiiyo waa in la kala qaato lacagtii iyo dahabkii lagu kala wareego. haddii aan lala kala wareegin oo lala kala dhaqaaqin ooy wax soo hadhaan, ama lacagtii baa wax ka laaban yahay ama dahabkii baa qaar la qaadanin oo ka laaban yahay, waa ribo. markaa waa ribo oo qaar baan ku siinaya qaarna dib baan kaaga keenaya, waa ribo. lacagta dib baan kaaga keenaya ha ii yaallo, waa ribo. leesh leanna iibkii waa dhacay, beeciina waa dhacay, heshiiskii waa dhammaaday, dahabka meesha yaallaad leedahay, lacagtiina waad keenaysaa. waa heshiis iyo iib dhacay aan waxna la kala qaadanin wey. iga siihay lacagtii baan keenayaay, waa ribo iska cad wey. sidaas daraaddeed ribadana waad garanaysaanoo sida xadiidka ku timid, hal dirham ah waa lacag aada u yar, hal dirham ah oo ribo ah, oo isagoo ribo inuu ribo yahay adoo og aada cunto, ayaa wuxuu ka dembi wan yahay 36 goor oo uu ruuxu zino ku dhaco. waa dembi aada u weyn. bal sida nebigu ku sheegay sal lla alay wasalam, ribada noocyadeeda kala gedisan ee 70 iyo dhowrka nooca ugu dembi fudud waxay la mid tahay nin hooyadii ka zinaystay oo kale, walciyaadu billaah. waa noocyada ugu dembi yar way. gabdhaha muslimaadka marka waxaan dhihi lahaa, meeshaasi khalad badan baa ku jira, khaladaad badan baad gelaysaan oo ku saabsan dahabka kala iibsigiisa. wixii marka aad haysato kaasha wuxuu kuu gooyo qaado, markaana la wareego la tag. gabadha dahabka iibinaysana lacagteediioo buuxda sii. haddayna kuu gooyn karaynin waxogaagaaga uruurso, markii ay kuu gaadhana dahabkaaga qaado. laakiin iisii dhig iiga sii hay iyo qaar iga qaada iyo kullu daalika waa ribo aan bannaanayn, shareecaduna waa diiday. wallahu aclam.